jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda oo ka hadlay sida ay u arkaan amarkii dhawaan ka soo baxay dawladda Uganda ee la xiriiray mamnuucidda goobaha dadweynaha iskugu yimaadaan muddo bil ah cudurka coronavirus-ka awgiis waa kuwan qaar ka mid ah oo TV Kalsan u warbixiyay runtii ku nool magaalada Kampala kana mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala runtii maanta halkan waxaan u soo istaagay inaan ka hadlo arrin ah madaxweynaha jamhuuriyadda Uganda Yoweri Kaguta Museveni uu soo rogay kuna soo rogay shacabkiisa taasoo ka turjumaysa xanuunkan coronavirus-ka ee soo galay bariga Afrika asiibay dalalka jaarka kaas uu jecel yahay inuu kaga hortago bulshadiisa una badbaadiyo guud ahaan bulshada runtii haddaan dhanka kale ka eego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda waxa la oran karayaa saameynna uu ku yeeshay runtiina dhinac kan la faa'iido ugu jirta saameynta ku yeeshay waxa kamid ah ardaydii jaamacadaha dhiganaysay dadkii isu socodkii dalka Soomaaliya ka yimaadaan ama dibadda ka yimaadaan xaggii ganacsiga waxyaalo badan buu saameyn ku yeeshay runtii aan la taaban karo iyo muuqan karaya haddii aan u soo jeesado xagga ardayda runtii saameyn ballaaran buu ku yeeshay magacaygu waa Cabdulqaadir Macallim Aadam Macallim Axmed ku nool magaalada Kampala dalka Uganda magaaladana u joogo inuu diyaariyo darajada labaad ee waxbarashada jaamacadeed ee master degree-ga waxaana halkan u taaganahay insha Allah ta'ala inaan ka warramo cudurkan lagu magacaabo coronavirus waxaan rabaa 3 point inaan ka hadlo insha Allah ta'ala pointiga ugu horeeya wuxuu yahay coronavirus oo aan dhihi karo cudur si caam ah u saameeyay dhammaan bini'aadanka ku nool dhulka korkiisa oo aan la dhihi karin gaalo gooni u saameeyay waxaan leeyahay marka cudurkaas wuxuu noo saameeyay si aad iyo aad u xoogan haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda waxaan is leeyahay wuxuu naga saameeyay dhankii waxbarashada wuxuu naga saameeyay dhankii kale ee ii sheegay tacaamulaadka kale ee bulshada oo adeegyada bulshada iyo wax walba micnaha la joojinayo sida in jaamacadaha la aado iskuulaadkii bangiyadii meelaha dadku iskugu yimaadaan oo ay kamid tahay goobaha cibaadaadka waxaas oo dhan inaan la iskugu imaan karin waxaan rabaa markii inaan ka hadlo annaga ka arday ahaan sidii noo saameysay iyo shacabka kale sida ganacsiga oo kale ka arday ahaan runtii annaga waxay noo saameysay saameyn ayay nagu yeelatay sababtoo ah hadda imtixaan ayaa noo socda hadda especially annaga ka ayu ahaan imtixaan ayaan ku jirnay daraasadii kwaatarka ugu dambeeyay 2 maada noo dhimaneed markii madaxweynuhu amarkan uu soo rogay uu dhahay laga bilaabo maalinta Jimcada wax shaqeyn kara male imtixaanaad iyo wax kala midna daraasad anigoo ah magacayga Qaadir Ismaan Maxamed oo ku dhaqan mataqaanaa dalka Uganda caasimadiisa Kampala ka mid ah jaaliyadda ay Soomaaliyeed ayantan mataqaanaa cudurka la yiraahdo coronavirus oo adduunka caalam weynaha uu ka qeyliyay oo mataqaanaa siyaabo badan looga qeyliyay oo mataqaanaa waxbarashadii iyo iskuuladii iyo jaamacadihii loo wada xiray awgiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ka kor qaado ummadda Soomaaliyeed waxa ugu digeen inay ka hortag iyo mataqaanaa ay sameeyaan gacmaha iska dhaqaan wajiga ay mask ku xirtaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la dhahaa Ifsaam Cabdullaahi Cumar waxaan nahay arday Soomaaliyeed oo ka barata dalka waxbarashada dalka Uganda caasimadiisa Kampala runtii bahalkii cudurkii imaaday oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu keenay wuxuu ahaa cudur aad u weyn runtii adduunka dhan ku faafay meel badan buu gaaray meel aan xataa bil aadin joog everywhere uu joogaa aniga dibku nagu hay waxa kamid ah maanta in waxbarashada ay dib u dhacday in imtixaanaadka ay dib u dhacay in madaxweynaha Museveni dhahay hal bil meel la maadayo runtii hadaf guulo badan baa lahayn in imtixaan sameeyno in wadanka ka baxno wadanka u laabano oo ku xamal ku soo ciidno ku soo soono laakiin inta ma saamixin oo wuxuu nagu saameeyay dhibkaas baa kamid ah waana kamaanta aysan noo saamixaynin inaan imtixaanka ilaa galno aan suuno hal bilna aan meel aadi karin sidoo kale waxa TV-ga Kalsan u warbixiyay mid kamid ah ganacsatada ku ganacsato dalka Uganda Maxamed Nuur Aadan Cadaani magacaygu yahay Maxamed Nuur Aadan kuna nool wadanka Uganda caasimadda Kampala kana mid ah ganacsatada ku nool ee dalkan maalmahan guud ahaan caalamka waxa ka socday cudurka coronavirus oo saameeyay dunida inteeda badan qaasatan Afrika oo wadamo badan laga helay sida dalkeena Soomaaliya iyo wadanka Kenya guud ahaan ganacsatada dalkan ku nool waxay ka fariisteen arintaas oo ay ka midoobeen laano si ay uga hadlaan dhibaatada cudurkan si maadaama ay yihiin meesha bulshada iskugu imaanaysa ganacsatada iyo meherada
ganacsatada waxay dhowr qodob ay isku afgarteen qodobadaas oo ka mid ah in ay cudurkan ka taxadaraan maadaama aan dalka Uganda wali hadda laga soo sheegin si ay nadaafada iyo guud ahaan cudurkan looga taxadaro halkan waxaan ugu faa'iideysanayaa fursadda oo TV-ga isiyay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan qaasatan dalkeena Soomaaliya shacabka joogayaan fariin halkan ugu diraya waxaan leeyahay ha ka digtoonaadaan cudurkan iyana yareysanin family kasta ama qoys walba ha ku dadaal nadaafada hana looga dambeeyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya hawshan awaamirta ay soo jeedisana hal la qaatay talooyinka guud ahaan Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan ku leeyahay digtooni qaba maadaama aan nahay bulsho aad isku dhex gasho salaanteena iyo isdhexgalkeena oo badan yahay biliis ha lagu taxadaro caafimaadka intaas ayaan kaga qayb qaadanay bulshada Soomaaliyeed halka aan ku suganahay waa ilinka laga soo galo Masjidul Qadaafi waa masjidka ugu weyn ee dalka Uganda gabi ahaan baa albaabada iskugu dhuftay Abdullah Ibrahim Abdi Karsan TV magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda